تلفزيون كعالمي بدأ على 24 TV أيام مروا ميكروفون كلا دح قاضي بولشوين تكون دقن عاصمة هرقيسة وحن وحكي ويدينه دليل ذا هرقيسة دليل ذو يسكمو ذا شيران دليل ذا قارو حلية ذهبين كي كعافل الكوادن بعد شدة إسلام كان أيك قادن موبايل يلعق يوحي له المالا دل هذا بدل دليل ذني أيام دتك وكل سارين رقية دمر بوايل بها هذا إسلام كان قوف جاي وحكي وايان شركي سدلو جيسن يا balse tan ay shicibku ku tilmaameen inayna tuugnimo ahayn ahna dhaciyo boob cadaana hadaba shicibka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay inay dhalinyarada tani u geysanayso shaqo la'aanta ka taagan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigiisii ololaha waaki ka dhawaajiyay madaxweynaha haatan kursiga ku fadhiya mudane Muuse Biixi Cabdi inaanu haba yaraatay arki karin nin dhalinyaro u dhashay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay farihiisaasi bilaa shaqo noqdaan hadaba dhalinyarada ayaa arintaasi ku farxay isla markaana ku taageeray mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaana u bixiyay aaba Muuse hadaba shicibka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay inaanu haba yaraatay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxba dhalinyarada u qaban dhanka kalena shicibka oo baaqu diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay inuu wax u qabto dhalinyarada dhanka kalena shicibka jamhuuriyadda Soomaaliland oo baaqu diray madaxweynaha ayaa sheegay inuu dhalinyarada wax u qabto maadaama ay dhalinyaradu yihiin jiilkeedin bedeli doona isla markaana uu sameeyo shaqo abuur iskana joojiyo tahriibka iyo waxyaabaha xilliyada habeenkii ay sameynayaan waxaana hadaladoodii kamid ah shicibku arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya wala su'aasha ku weydiinaya waxa weeyaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada ku nool caasimadda Hargeysa ayaa waxay ku kacaan xilliyada habeenkii falalku aadan baarashada dadka isla markaana ka qaadanayaan mobile iyo lacag ay sitaan maxaad arrintaasi aad ku tilmaamaysaa walaal horta arrintaas waxay ka bilaabmataa qoyska ilmuhu marka hore wuxuu ka soo xumaadaa xagga qoysku soo xumaadaa waayo ilmahan wax qaadanaya suuqa aad arkaysaan waxaan uu qaadanayo xumaantan gurigu kala yimi dabeetana shacabkii buu la soo dhex galay marka qodobka koobaad waxaan leeyahay labada waalid ilmaha rabaayada ha hagaajiyaan ta kale ilmihii markii hadiiba ifan ay way dhacday oo ilmihii rabaayada ka xumaatay oo suuqu soo galay oo dadkii wax kala dawladdu ha isku daydo inay wax ku qabato oo shaqo abuurka habadiso ama tusaalahaan dawladda shaqo abuur ha u sameeyay shaqo ku weydiinaya ardayna shaqo la'aanta ardaygu ama qofka wax qaadanaya runtii kuma dhiiradeen inuu qofta jeebkiisa ama wax ka qaado marka runtii waxaan arkaa dawladdu inay shaqo abuur sameyso barnaamijka tusaale maan dhaweey tolo jaamacadda Hargeysa ka hadlay wuxuu sheegay barnaamij la yiraahdo shaqo qaran marka shaqada qaran la soo dedejiyo dadka noocaas oo kale waliba u baahan dadka dhibta ku haya waa inuu shaqo abuur loo sameeyaa marka su'aashaasi saas yes way noqonaysaa shaqo la'aantu qayb ka tahay dadku tuug noqdaan wato bilaa amarka iyo dhaqankii iyo waxbarashada ka xumaatay oo marka aan la fiican loo hagin taasina waxay keenaysaa marka ardaygii waxbarasho ka saaqido amal la waayo inuu maxay bruuday qaadkaas uu soo helo dadkan u baadhade marka boob sameeyo marka waxa ugu wacan amal la'aan iyo dhaqan xumo marka ay reertu maxay wajahday وناصر عبد القادر عبد الوهاب ناصر تلسمه تلفزيون كعالمي بدأ على 24 TV عاصمة هرقيسة